حزبي وهبطوها بون إنه شغلها خطه أن هو إن شاء الله تبارك وتعالى أمور الصومالية اللي كسوني بدنا طبعا نجبر أن يكون شغلها في نقطة ما دام يصير أصلا أمور أي كسوني بدنا طبعا نجبر أن يكون هنا رمتي إسبيريك لنا هنا شغلها نقلت في لا يصير أبوه ناسنا أنا بس واضحنا فعنا وين نقول جو dadka Soomaaliyeed waxaa la yiraahdaa bulshada hadda joogta boqolkiiba 73 waa dhalinyaraduna marar badan waa cabtaan oo waxay yiraahdaan si badan oo ugu muuqano waxaan rajaynayaa xisbiga himilo qaran inuu noqdo midka fursad weysiiya dhalinyarada hoggaanka waxaa ugu wanaagsan adeegaa midka diyaariyaysiisha bedeli lahay marka ma aqaan aniga hadda qolada ay u tirinayseen laakiin waxaan jeclaan lahay inaan ka qayb qaato diyaarinta jiilka cusub insha allah xisbiga anaga oo noqdo xisbiga lagu calaameeyay inuu shaqadaas qabto qodobka saddexaad ama afaraad aan raba inaan u gudbo waa haweenka oo mar walba ahay xubinta fircoon oo ka qayb qaadata arrimaha qaranka arrimaha qoyska aan ka daalin umadnimada iyo dowladnimada Soomaaliyeed ayadana waxaan rajaynayaa in xisbigu noqdo xisbi siiya ahmiyad weyn arrinta intaas aan ka dhicin waxa waaye isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed iyo wax wada qabsigeeda iyo dhismaha kalsoonidooda oo iyadana ah arrin muhiim ah وأنا بالنسبة لو كجواب ودي سوى نكسر أو بلارتي لكن أنا رجينا إنه سلا كفي عن سكفي عن وقبل على إنه بالنسبة مواجهه وحنا رأينا كوكا بجبايو درانك ضد بدن أو تشبه أما إحنا بدن أو تشبه كمية طبعا إن قبل هذا كانت دول دركوا تشبه أرض مغران تشبه قبل هذا وهمتي عن قوائنا لما تظهر استراتيجي وحسبك أهمية قارة التصنيع مرة بين النادي كل يورك إن شاء الله بدنا نترك ولا تهدي شركة هذه على ما سنتي السلام عليكم ورحمة الله آديان ممثليه مدحوينه شريف الشيخ أحمد عجلنا ينوكوه إن شاء الله تعالى وسمعون دونا أخرينتا يا أنفسنتا خير كحسبنا فكوحان كوري في دونا بدوبيها أدبدو ما سنتين إن شاء الله خطبتها حاجة والله سعندون تهدو إلى إرادة